wasiirka wasaaradda maaliyadda Marwo Samsam Cabdi Aadan oo maalmihii u dambeeyay ku sugnay degmada Saylac ayaa saaka si rasmi ah xariga uga jartay xarun weyn oo loogu talagalay inay ku shaqeeyaan laamaha dawladda ee dhamaanba ka shaqeeya magaaladaasi loo yacado ee ku taala xuduudka u dhaxeeya labada dal ee Soomaaliland iyo Djibouti. xariga jarkani oo loo sameeyay munaasabad aad u ballaaran ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliin aad u tiro badan oo ay kamid ahaayeen safiiro taliyayaal ciidan oo ka kala yimiday dalalka Soomaaliland iyo Djibouti sida taliyaha booliska ciidanka Djibouti iyo taliya xigeenka ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland. sidoo kale waxa ka soo qayb galay safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Djibouti iyo waliba marti sharaf kale oo aad u tiro badan. dhanka kale waxa goob joog u ahaa munaasabadani barasaab ku xigeenka gobolka Selel maayirka degmada Saylac iyo mas'uuliin kale oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Saylac. xariga jarkaasi kadib waxa wasiirka iyo wafdiga la socdayba indha ku soo sameeyeen dhismaha xarunta dawladda ee magaalada si loo yacado oo wasaaradda maaliyaddu ka hirgelisay sanadkii hore. intaasi kadib waxa halkaasi kala hadlay saxaafadda mas'uuliin aad u tiro badan oo dhamaantoodba ammaan u soo jeediyay wasiirka wasaaradda maaliyadda Marwo Samsam Cabdi Aadan iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee muddaxileedkiisu dhamaaday mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. waxa la dhisay 1957 baa la dhisay aqalka. waxa maanta ku guuleystay dawladdii Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa ku